Way timid maalinteennii 12 sano ayaanu sugaynay laba xaaladood oo kala duwan. Waxaa qoray Cabdirasaaq Sandheere. Sawirkani waa aniga iyo hooyaday Leyle Axmed. Waa Doraad. Waa 12 Sebteembar 2021 iyo qalinjibinteedii jaamacadda Camuud. Muuqaalku waa farxad kale ku lamaanan. Halgan nololeed iyo hami hirgalay ayuu muujinayaa. Waa xaalad gaar ah. qalinka kuma muujin karo dareenka uu gudbinayo. Sawirka iyo turjumaadiisu waxay igu xanxanteenayaan ama ay xasuusinayaan maalin aan sii fogeyn oo xaalad kale iyo goob kale aanu aniga iyo hooyaday wada joognay. Waa dhammaadkii sanadkii 2008. Waa aniga iyo hooyaday. Aroor hore ayaanu aqal Soomaaligeennii ka toosnay. Laxooxdii ayay dubto hooyo. Dhowr xabbo oo qalalan ayaan cunay. Sacihii aanu shaaxa ku caddaysan jirnay ayaanu ku maalnay. Aniga iyo hooyo waxaanu u baxaynaa magaalo. Oo qorshuhu waxa uu ahaa aniga in magaalo aroortii la igeeyo. Dhowr calal oo huna ayaa bacyar ku ritay. Hooyana way lamaanayd oo gabar yar ayay xambaarsanayd. Waanu diyaar garownay. Waxa aanu tagnay istaanka caanaha laga qaado ee tuuladeenna Qorijabka, Oogada ama Madarka Qobba sida uu u yaqaano. Waxa aanu halkaas ku sugaynay gaarigii caanulaha ahaa ee wajaala caanaha keena. Gaarigii ayaa soo maray istaankii ama godkii caanaha. Hal shidh ayuu lahaa gaarigu. Dhinaca guradana caano ayaa lagu risan jiray. Mar haddii shirkii gaariga aynu weynay, si kasta oo ay u adag tahay, waxaa qasab noqotay inaan aniga iyo hooyadayba gurada gaadhiga aan fuulno. Gaariga caanuluhu boqolaal meelood ayuu istaagaa oo caanaha ka qaadaa, aadna waa u warwareegaa. Aniga wax badan ayaa igu cusbaa, balse laba arrimood ayaa igu waaweynaa. Marka koowaad marka ugu horreysa aan gaari fuula ayay ii ahayd. Intii hore marka aanu guurayno, haddii aan daalo waxaa la ii saari jiray gaari ximaar ama kolba wixii macquula, balse gaari guuxiisa oo xoolaha iga didiya mooye hore uma aanan raacin. Markii aan gaariga fuulay ayaa dhulkii la orday oo waxaan arkay geedaha iyo wixii dhulka socday inay ordayaan. Qiyaalkaas ayaa ii sawirmay. Markii gaariga in yar uu socday ayaa matag ama hunqaaco i qabatay. Kumaanu soo talagelin oo qorshaha kuma uusan jirin waad hunqaaci doontaa. Alxaasil waan matagay. Dhabta hooyaday ayaan ku sii daayay matagii. In yar ayaa caagadihii caanaha gaaray, maadaama gurada caagado caana ahi saarnaayeen. Mar haddii aan hunqaacay, caagadihiina waxaa gaaray wax yar. Waxaa kii gaariga waday ama darawalkii uu yidhi igadega. Aniguna xiqda ayaan hayaa oo mataga maahan mid kala joogsanayo. Ugu dambayn waxay xaaladdu keentay in hooyo ay la lugayso oo maanta gaariga halka aanu joogno iga reebto. Maalinkii xigtay ee beri oo kala ahayd ayaanu wajaala tagnay. Waanu lugaynay aniga iyo hooyo oo lamaan ahayd amaba dhabarka ku sida cunug yar ilaa meesha caloola la yiraahdo oo ayeeyday aabba Ruqyo Siciid waqtigaas yara deganeed. Ayaan xilli duhura nimid. Halkii ayaanu ku nasannay. Ilmihii ay xambaarsaneed hooyo waxay kaga sii tagtay ayeeyo Ruqya. Maalinkii xigay ayaanu diyaar garownay oo wajaala ayaanu nimid. Tan labaad waxay ahayd waa markii igu horreysay waan magaalo arko. Hore umaan arkin magaalo. Tuulooyin ayaan arki jiray. Magaaladii igu horreysay waxay ahayd Wajaale. Sidoo kale waxaa igu cusbaa suuliga. Maalmo kadib waxaan tagay magaalada Buurama. Halkaas ayaa nolol cusub ka bilaabay. Hooyana miyigii ayay waqtigaasi ku laabatay oo carruurtii iyo xaafaddii ayay u tagtay. Xaalado cusub ayaan galay. Isbeddel nololeed oo gun iyo baar ah ayaa dhacay. Xasuustaa dheer ayaan galay oo maalintan weyn ba ay xasuusisay. Maalinta adkayde aan soo yara laabto. Waqtigaas ayaan waxbarasho bilaabay. Waan u dhabar adeegay. Culays kasta oo ay lahayd waan u adkaystay. Allana waa igu asturay. Tiro ma lahan inta jeer ay duruufuhu jooji yiraahdeen, balse aan u adkaystay. Waqtigaasi waxa uu ahaa dhammaadkii sanadkii 2008. Markaas ayaan imid miyiga aan ku dhashay. Waxaan iska beddelay xaaladii aan ku jiray. Waxaan wareejiyey xoolihii aan raaci jiray. Waxaana bilaabay waxbarasho from xoolo raac to aqoon raac. Maanta waxaa laga joogaa 12 sano iyo 10 bilood. Dhinac marka laga eego waa waqti kooban. Waxa qabsoomayna waa wax weyn. Qur'aanka ayaan xifdiyey. Waxbarashada dugsiga waan dhammaystiran iyo 1 dibloomo, 2 digri oo turjumaada 3 buug, qoridda 1 buug,
qoridda boqol ama maqaal iyo waxyaabo badan oo kale. Duraad ayaan jaamacadda Camuud ka qalin jebiyey. Waxaa xafladda igala soo qayb galay waalidkayga, qaraabo kale iyo asxaab fara badan. Waxaan qiyaasi karin farxadda aan ku sugnaa. Farxaddeeda mid 100 jeer waxaa ka badneed farxadda ay hooyaday Layla dareemaysay. Waad qiyaasi kartaa farxadda hooyo carruurteeda halka qof ee wax ka bartay kiina qalin jebinayo. Sida aan hore u sheegay, maadaama aan ahay qofka keliya ee qoysas badan iyo walaalihiiba wax ka baran, waxa aan rajaynayaa in Alla ila garab galo mas'uuliyadda. Maalintaa farxaddeeda waxaa deris la ahayd mid murugo ah, inta qoyska ayna cidna waxba ka baran. Runtii waa xaalad aan in badan ka fikiro oo wax iska weydiiyo, Allah igu asturo. Guntii iyo gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa Allaha qadaray inaan fursaddan aan helo. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo wax uuna ku lahayd fursaddaasi haba yaraatee. Heerka nololeed ee waxbarasho halkaas ayuu ku dhammaaday, waana miro dhalay. Waxaa loo diyaar garoobayaa halganka nololeed ee kan xiga. Dadaalkaa ka badan ayaan la imaan doonaa insha Allah. Fiiro gaar ah qoraalada noocaan ah dareen ahaan ayaan u qoraa. Ma ahan wax qaas ah oo dibadda laga keenay, waa biography oo dhiirigelina. Qofka ayaa waxaa lagu quuqiyaa oo lagu cabursiiyaa doonistiisa. Anigu waxaan ahay qofka kala garanaya waxa qaaska ah iyo waxa aan ahayn. Dad ayaa marka ay qoraalo noocaan ay arkaan meelaha ka sheega waa qaas iyo waa nacnac kale. Maaha cidda sidaa u taqaanay. Soo kala barta waxa qaaska iyo sidoo kale waxa biographiga ah. Guul iyo halgan baa inoo balana. Waxaa qoray qoraalkan Cabdirasaaq Sandheere.